casharka inta noogu xiga waxaa noqonayaa sida qof diiwaan gashan aad u soo saari kartid hab yar oo fudud aad ugu soo saari kartid. Markaas aynu dad badan baynu diiwaan gelinaynaa imika aynu bilowno. Okay, inta baan ku daysanaa hadda waxaan sameynaa qaal ahaan baan intan usoo qaadanaynaa. Marka dad badan haddii ay ku diiwaan gashan yihiin oo kala tusaale ahaan waxaad samayn kartaa qofka hal mar keliya aad soo heshid adiga ku baadhay tusaale ahaan kalaaskiisa ama ku baadhaya maxaan ku rahdaay xagga maadada ama magaciisa ama ID-giisa oo qof walba ID gaara wato. Iminka tusaale ahaan haddaynu qof labaad oo beeraha diiwaan gelinayno waxaanu magaciisa la yiraahdo tusaale ahaan wuxuu dhigtaa maadada beeraha culumta beeraha ayuu dhigtaa. waxaanu u bixinaa galaaskiisa maadaama galaaska culumta beeruhu haystay number 1 fasalka koowaad waa fasalka koowaad ayuu noqonayaa. isku qiimo baa la gelin doonaa haddii la yiraahdo saasana sax ku noqonaysaa. fasalka xilliga la dhigtaana isku waqti ayay noqotaa oo gelin hore iyo gelin hore. fasalka koowaad iyo fasalka koowaad maadada iyo maadada isku noqdaan. laakiin tusaale chemical engineering waxa uu wataa fasalka magaciisa la yiraahdo lambar 3 buu wataa. ICT wuxuu wataa lambar 4, software wuxuu wataa lambar 5 buu wataa, computer science wuxuu wataa lambar 2. waa in markaa isaga kugu kala cayiminsanaadaan. marka imika hal arday baynu soo raadinaynaa halkii aad dad badan markii 100 arday ku diiwaan gashan yihiin halkaad ku magaciisa ka baari lahayd aad hal mar kaliya aad sad ku heli lahayd aynu sheegaynaa. ugu horeyn waxaad samaynaysaa kaadoonis inaad ku baadhid. imika tusaale waxaan doonaynaa inaan ID-ga ku baadhno. ID-ga halkuu ku qoran yahay mid kamid aad ku dhufanaysaa. kabacdi waxaad tegaysaa home tab-ka ayaad tegaysaa kadibna find groupka loo yaqaano ayaa waxaad ka dooranaysaa find. kadib markaad qortid halkaa find-taasna ha ku doornaato replace maaha find-taas ha ku doornaato. marka kaliya waxaad samaynaysaa lambarkaad u baahan tahay maadaama inagu markii hore aynu lambaraanta soo calaamadsanay oo mouse-keena kusoo dhex dhufanay lambaraanta. marka imika lambarkeenu gelinaa tusaale ahaan ardayga lambar 7 ayaynu baahanahay. find next. si aynu aragno lambar 7 waxaa laynoo saaray highlight. markiiba lambar 7 waa laynoo soo qabtay. haddii 100 arday ay kugu jiraan meeshana markaaba sidaa kaaba kugu soo qabto ma kugu soo qabanaya. aynu ka bedelnaba lambar 3 may soo raadinayna. find next. aynu ka bedelno waxaynu ka dhigaynaa tusaale lambar 5 may raadinaynaa. waa lambar 6 ku eeg soo qabtay. lambar 9 ku eeg kaas soo qabanay highlight buu ku saaray markaaba. way imika waxaan bedelnaa bal column-keenu ku goobayno aynu bedelnaa waxaanu ka dhigaynaa ka class-keenu ka dhigaynaa. tusaale ahaan waxaan oranaynaa ka class-keenu ka dhigaynaa kadib home-kan tegaynaa waxaanu kasii dooranaa find. tusaale ahaan class-ka labaad baad raadinaysaa. okay oo ka soo qabtay class-ka labaad cidda dhigato oo dhan ayuu noo soo saaray. markaan ku tusaale raadino class-ka koowaad waxaan noo soo qabtay lambar 1 oo ah Rashid Daawud. lambar 1 haddaan ku celinana waxaa noo soo dhigayaa kii kale. tusaale ahaan imika waxaan raadinaynaa lambarka class-ka 5 oo kale.
waynoo soo qabtay. Iminka waxaan ku eegaynaa haddana bal 1 baynu ku eegaynaa waynoo soo dhigay. haddii aan kan aad u baahantahay aanu kan ahayn next bal aad sii oranaysaa oo aad hubtid inay 2 1 ama 3 1 4 1 ay kugu jiraan next baad oranaysaa. wankii kale ayaa uu ku geynayaa. haddii aad tiraahdid fine 2 1 oo kaliya taa meesha ku jira laakiin dee kuma jiraan 1 fara badan, marka intii uu baari karayay yacni wuu baaray oo intii kugu jirtay waa uu dhamaystiray oo uu kuu soo bandhigay, laakiinse wax intaa kasii badan kuma jiraan. marka saas baad u baari doontaa haddii aan la yiraahdo. haddii iminka ku eegni maadada subject-ka ood ku qortid fine dataad gelisid beeraha fine markaabuu kuu soo tuuraya, xataa kaad ku baadhay highlight buu kuu saaraya. haddaan fine iraahdo beeraha 2 arday ayaa ku jira haddii aan ku baadho computer science markaa inoo soo dhigay. waxaa intaa halkaan baraarujin lahaa haddii iminka aad bedeshid xuruufta qaar ka mid ah. tusaale ahaan computer science sidaas waa capital small haddii aan ka dhigno bal maxaynu oran doonaa. inta kalena sideedii waa qorantay laakiin xarafkaas ayaynu ka dhignay c small ah. waxaynu oranayaa ma jiro net found baynu oranayaa lama helin. waa inaad markaa kaa ka dhigtaa c capital ah. sababtuna waxa weeyaan case sensitive weeyaan, waxaana loo yaqaanaa waxa jira sababtu inoo diidaya waxa weeye computerku waxa luqadda ku hadlaa amba uu yaqaana waxa weeye 1 iyo 0. luqadahan dee compilerka ah dee fahansiinaya dadka iyo maxaan ku rahdaa computerka isfahansiinaya oo dee isku xidhaya tusaale binary-ga oo kale iyo kuwaasna lambaraan caadi weyn. marka xarafka c lambar buu u taagan yahay, lambarkaa uu computerku u yaqaano xarafka c ee capital ah iyo xarafka c ee small ah 2 lambar oo kala duwan buu yaqaanaa. marka kii aad gelisaaba ku kaluu la noqonaya isaga. marka taana way ka baraarujin xuruufta sideeda ta capital ka dhig, ta small. badankan waxa ku fiican inaad id-ga wax ku baadhid dhowr sababoodba. 1 id-ga arday kale id la noqon karaa ma jiro, maxaan ku rahdaa waana u unique arday walba gaar buu leeyahay. sidoo kale qof kasta oo arday kastaana wuu ku xasuusan karaa, ama product kasta haddii iminka product ahaan aad u diiwaangelinaysid alaabaad diiwaangelinaysid products id-giisa waad xasuusan kartaa, balse inaad xifdidid magaciisa waxa laga yaabaa inaad computerka markaad qoraysay aad gelisay typing error aad gelisay oo markaad qoraysay aad error si qaldan aad wax u qortay, laakiin id-ga ayaan hubaa inaanu kaa qaldamin kaa isticmaal.